السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي خيمها قدرت رمضان لما هو إذن ود السلام يا وحن إذن لي هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي وإذن السلام يا هبين وناكسن وعن الحمد لله إلهي بمهد شكر إسكاله. أصحابي والله waxyaalo aan hadda aan dhici karin ayaa horta waxa waaye adduunka ka dhaceen awaarihii waa ka sii dareen hadda heer xataa waxay maraysaa in oo dunyada iska dhaafee ay dadkii ay tagaan ay noqdeen saameeyaan marka hadda waxaa war igu soo gaaraya isla maanta 3 cunug ayaa hadsan war igu soo gaaraya waxaa kale war igu soo gaaray nin oo tuulo inta ka soo socday asii ciyaalkiisa markuu is dhahay ciyaalka fiiri hal cunug meed ah ayuu arkay kulli xaqiiqadeena kulli waa ogaan doonaa haduu alla idmo asxaabay dhamaan horta waa idin salaamaya fadlan channelka haddaad ku cusub tahay subscribe-ka noo taabo like-ta gambalelkana furo share-tana nagu qabso sidii friends-kaada nagu gaarsiisid commentigana waa dhiirigelinteena asxaabteeda aan sii gudgalan barnaamijkeena gobolka Hadigada ee degmada Luuq hadda hoos imaada dhimashada waxaa la xaqiijiyay 9 ruux dhanka Garbaarey waxaa la xaqiijiyay 6 ruux dhanka kale ceel waaqa waxaa la xaqiijiyay 9 ruux oo dhimasho ah walaalahayga muslimiinta dhamaan meel walba ay joogtaan inta maqalkayga iyo muuqayga taqaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh saas ay tahay waxaa haddana ka sii noqotay dunyadii waxaa ka dartay dadkii markii oo naxariista oo anaga isu naxariisan lahayn ayaa keentay naxariis daradii ayaa keentay maanta in heerkan allihii awoodda lahayna gaarsiiyo alxamdulilah taas way dhacday asaan ku mahadinayna asaan ku shukrinayna okay midda kale waxaa haddana kale hadda igu soo warbixin igu soo gaartay dhanka Baardheere iyo Boordhowo 12 ilaa deegaanyada hoos tagaana dhan Boordhowo Baardheere 12 isla Luuq maanta